Smart Dental Clinic. inta hidayado adiguna insha Allah inaan wanaagsan oo imla xalaal oo ka farxiyo wad helaysaa dhawaan alla bisanka da wax farqiyo oo ma dhaxeeyo laakiin turmeen yar ay waxaan inanta weyni inanta yar ka horeyso wala shay ko shaaliya hambaliyan kulay hambaliyo alla miskiinti fiidiyay intan gabgaba ku gubo oo ku shiilo ayaan islaantii min raaqafna ku horeeyo miskiinta intan ku wada waxba karani ayay dharigi karso deewaa ka gubtay wajigeeda qurux badnaa ka warananteedii qorshahan waa qorshe wanaagsan hadda ayaan arki doonaa wajiga sidii hore ugu soo noqday iyo waliba sidee ku eegi karaan halkaan ugu joojimaan kugu horihiimay maanta ka bacdina uma adkaysanayo uma dul qaadanayo dulmiga aan ugu waday baan kugu hori kaama yeelayaan ku in mar dambe u dul qaato nana adal baydin ku taalaban ku hori ninka gurigayga joogo cuntadeedii cunaya baadna say la hadlaysa baxa baaridi ku hori dibidin ma arki karo haddana wajigeena iga qariya dareera baxa كائنتي استاك سوكا sidaas ayaa dadka ula dhaqantaa adigu laakiin ka waramaynankina hadiiba u jeclaan waa inantayda u diida ka warama isaga wali inantayda muu arkinba kooshaaliya dadka waaweyne iyaga go'aanka iska leh qaadashadiisa mana dhici karto in qof arkay inantaada fiidiya uu jeclaan waayo iyada inantaadu weynan wanaagsan bil xaqiiq waynaad hadda isu diyaarisaan waqti xaadirkan laga bilaabo arooska fiidiya insha Allah khayr bay noogu dhammaan wuxuu yiri intaada ayaan kayga u doonaya walibana waan u guurinaya niga kala dahooya hadaba nigada waxaad ku hadlayso waxba qaldan maxaa ku dhacay fiidiyay hooyo wixii maanta dhacay riyo ay leeyihiin aniga waxay la tahay sidii aan qof ka xaraantin miyay hooyo magac uu qoray wadaadka magaca shaalo ayuu ahaa aniga iman iyadaanay soo doonteen laakiin ma garanayo si magacaygu meesha uu aaday ee waraaqda waxa ku qariba ban garan lahay bay la hadda fiidiya midda kale iyagu hooyo maxay nolosheedii ku ogyiin markay rabaan inankooda inay guuriyaan iyagu hal mar ayay arkeen way ma hal mar iyagu aan ku gaadhin inankooda ay ku daraan hooyo ishag maxaa dhici doona markay xaqadeedii ogaadaan fiidiyay maxaa dhici doona ragga markay go'aan qaataan waa maray ka soo fakaraan marti lagu ogolaado in iska ogolo raanda waa saxsantahay hooyo maya hooyo maya qofka saxsan waa qofkii xaq u lahaa guurkan hooyo kitaabka lagu sheegay inay xaraan tahay in qof kale xaqiisa uu ka xado maya hooyo hadda ayaan ka daba tagayaa mudana ragaaf oo ku oranaya anigu xaq ma leeyahay guurkan way ma ogoli qofna inaan farxadiisa iyo xaqiisa aan ka duudsiyo ma rabo hooyo taa hadda daasaan u tagayaa ragaaf fiidiya hooyo sonjo fiidiya mudana ragaaf waan ku bariyaa rooskan isaga jooji anagu ma qalmo inaan noqdo inaan asooda hotiin ma qalmo inaan noqdo xaaska saahir waayo idinku noloshayda waxba kama taqaana waxba kama ogidin isagu shaalo ayuu guursanayay waan ku baryayaa anigu ma doonayo qofna xaqiisa inaan duusiyo oo xaqiisa aan qaato taasi waa qalad weyn waan ku baryayaa mudana ragaaf waan ku baryayaa xaajiyadeedii oo may hadda ayay fiidiya ii cadaysa aniga in go'aankayga uu sax ahaa inantani ciso iyo karaamo ayay leedahay fiidiya adiga ayaa u maleeyay malaha inaanad inankayga u qalmin laakiin aniga xaggayga way ga dhan tahay baan ku laakiin anigu waxaan hubaa fiidiyay haddii inankayga ay gabadhi u qalanto inay taasi tahay adiga laakiin si fiican uga fikir waa run inaanu adiga magacaaga ku jirin magacyadii uu wadaadku noo soo qoray hablihii badnaa adiga cidna noogama kaa sheekayn
kumaanan arag hadda ka horow laakiin qadarka ayaa ahaa inaanu adiga kula kulanno is aragno wayna dhacday tan kale dhageyso inantaydii wax kastoo dhacaya qadar alla ayay ku imaadaa alluun baa qoray waqtigay imanna qofna ma oga waa qoraal allow ma fahan smart dental clinic xarunta daaweynta afka iyo ilkaha ee smart dental clinic waxa ay kuu samaysay qiimo dhimistii abid ugu ballaadhnayd ee xidhista biraha ilkaha waxaanay xaruntani kaaga dhigtay xidhashada biraha ilkaha in qofku markuu xidhanayo uu bixiyo $30 oo keliya inta kalena uu ku bixiyo hab hafta bil walba haddaba ka faa'iidayso qiimo dhimistaasi ballaadhan ee sanadkani ay kuu samaysay xarunta daaweynta afka iyo ilkaha ee smart dental clinic oo ka mid ah goobaha bixiya adeega caafimaad ee afka iyo ilkaha ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaana agagaarka hotel Cali Jirde amaba adigoon isdhimin kala xidhiidh wixii faahfaahintaasi dheer taleefanada iyo ciwaanada shashada kaaga muuqda hamogaanin smart dental clinic guursado haddana ugu dambeyntii wuu ogolaaday inantaydii waxaan ku sheegay wax kasta inay nasiib ay yihiin sidaa daraadeed haddii aad inankeyga ogolaatay oo aad sidaa ku raacday waxaan ku oran lahaa suukaankan markii meeshii maalintii ugu horeysay aan kugu aragnay haddii aad halkaa timaado waxaan ogaanaynaa inaad ogolaatay guurka inankeyga haddii kalena dhib ma lahan fidiya maxaad go'aansatay saaxiib runtii waraaqda intii ugu muhiimsanayd maynaan akhriyin laga yaabo in wax muhiima doonay inuu inankiisa iiga sheego sidaa darteed ma aqaan saaxiib anigu u malayn maayo inay wax muhiima ku qornaayeen kole markii hore saahir muu ogolay inuu tuulada inanka guursado laakiin ugu dambeyntii wuu ogolaaday sidaa daraadeed inay wax kale ku qornaayeen anigu ma u malaynayo sidoo kale adba waad jeclaatay saahir soo maaha maxaad go'aansatay hadda ma tegaysaa mise ma tegaysid may iman ma laga yaabaa in jawaabteedu